فرمة جندي اللي ما قرن بداي فرمة قدام فرا إياه قدامي ساكفر سلا كفر قدامي أجندها ما قيل أنا ما يعني قيلني odaygan mudan maxaa keenay odaygan cadka ama uxumoodayo iyago lagu dhaqaaleeyo odaasha da'dan miyaan garanayaa bal sidii u gariiraya guriga kaaga taranay bal gariir balaag u gagagalay muuska jiifsada meelaha dadku dhalimeeyay waxa kala soo doonay ma cid lahayn iyadoo ma la qabto odaygan aamus xaaja loo baahno aamus baan ku leeyahay الله بهانو قلها كامس الله بهانو قلها كامس قلها شرعي بك يا لي حار ku dheeraad الله بهانو امس قلها الله بهانو قلها وين قلها الله بهانو ما كنت قال الله بهانو كنت الله بهانو امسي هذه كتابتي تقول ملي تقول بدل قلها قدامي مدعي بالله يقول ولا يسوي دور جسني يدينا بدي muduc lagu ma golaha dheeraad dad ku taayay tigida qarantida bro kama diinay dheeraad dad ku taayay يلا ما مسكلا هسي كلا قاضي جيران ودا خويا لا معيد كام ماشي kadib marka la soo kala saaro ee la kala jiido halkii ceebtooda dhuuman lahaayeen ayaa waxay soo istaagayaan saxaafadda horteeda isagoo mid walba ka sheekeynaya say wax u dhaceen ma hadli karayo oo maanta golaha ka dhacday waxay ahayd musiibo wax la isku mashquuliyo weyn meesha ma yaalaan xaalad cusub oo dadku ka argagaxana meesha ma taalo kuwii hore wasi suu kay duleynayeen ee feerkiisu la kay dul dhacayeen bay ka tageen awrka dambana awrka hore socodkiisu leeyahay tiin baan haynaa feer iyo laag iyo kursi imaanka la iskaga qaaday maanta xaaladdu dajin bay u baahan tahay degdega waa kuwa aad moodo golaha intay fadhiyaan waxa ka badan ba intay saxaafadda hor fadhiyaan waa kuwa cid walba eedaynaya 24 saacadoodna eed la soo taagan qaladka meesha ka dhacay golaha waxa ka masuulo oo keenay oo dhex keenay oo sababay waxa weeyaan sidaan wada ognahay qaskan golaha ka taagan waxa ka masuula cabdilaajidow mi ninka xildhibaan abtiyo uu reegay soo socdaan maxaa helay maalmahan niyo ilaa arin meeshan meel digniin doonay duweegi sameeyeen مسكين أبتي أسمعي السلام عليكم عليكم السلام أبتي معك وهلي أبتي ما أنت تقول لعضي أنا جو حافظت ذيك السعودة طلعت دامرية يقال حلي وصوت ترى قالوا يقول لي هو يا كقول دي وتناس كم ساكن بيننا رحية حبوا دي أنا دوان سيسي داي ما كده هذي حكوا لي يا ما حد يسدي صوت قاري ولا ذو قاري الحلية حوتي وروح عن مركز حل بان تايم ما هنو الجوار كيو دولة أفكار ساقو تاجي سبك قلها كسب حبا يوضا ذيس وحل الدنيا أنا تراهدو gaarigan dhuxul ma aha gaarigan waxa tiraa numberkii dhuxulaha iska hada dhuxul ogaan bal sagartay numberkii dawladda sitidi gaarigu oo waxa lahayd dad wasaaradda waxa tiraa wasaaradda kalluumaysiga lahayd ha xildhibaanada wana la kalluumaysanaya sidii kalluunkan la dogarsanaya carruurtayda ma ka haysan karna dhe waan jabadan nolol soo diraayo waxa tiraahdaa leexooyinka xitaa miginka askar baa la haysanaysan sidibad saas ma dooranaysa وانا دبا يا دو عبد الشجر قبو واحد انيغنا igu daro waxa tira labadii xildhibaan muhiimka ah guriyooda kama soo baxaano dad masaakiintii waysa lagu soo diray dhadhaga xan guriga loo taagan waldiidii orod waxa gaariga noo jeedo nabarka dawladda u sidii bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa kal fadhigeeni koobaad waxaanu ansixinaynaa ajandaheeni koobaad ugu horeeyay hal is dhageysto mudanaya والله فاكو جرا xildhibaanadana waa shaqeynayaan taawada waxaan meel kala aamusiiniyo mar labaad baan ku celinayaa hal la aamuso golaha la dhageystaan ilaahay waxay gudoomiye aamus waxa isugu xildhibaanada kala qaylinayso wadays iyaga baa aamusi meega naga wanaagsan oo golaha daji mudane iyadoo socota qeyladii buu ku dhifraa jandaa mudane ka daamay waxaan baahan buuq iyo qaylada iyo waxan ka taagan waa jamaadu mana meeshu waxaan kacay tigu tagaan ugu soo deena xalagaas anagu hadii naga qeyladii buu qamarey aan qaylo buuqdeena dadkana musiiyo way wallahi laabsan ka madaxa kaaga fadhiyo billah naga qeylada bal waxa meesha ka dhacaya garto yaa adiga dhex raacay dadkii aan dhex raacay balnada waxa meesha buuqiyo qaylo ka socday dad waaweyn lama aamusin karaya hal is dhageysto aamusa hal aamus aamusa gadaad Allahu akbar ashhadu an la قدام حرام تقول يا دكتور كلام سايد يا كلام انا وين قال لي قال لي حدا مثلا ما تجيبني قلت لا مثلا يا كلام قدام يوم مساسد ما طايرته ورته مساسد ما طاح والله قصصي اجنده سيسنو كان صح مسلمين والله لا ما مسلم يا miiskan uu kala jibin miiska golaha madal ma dawladda ku dhashaadiga lama sixinayo ku mikrofoonada kala jibin naga tagurado طلع
fadlan dagaalka hal la joojiyo hal la isdhageysto هذا اللي يستخدميه أمس gudoomiyaha hadlay xayawaan نعم حالة أمس هلا أمس istajiya gudoomiyaha aynu isdhegaysano xildhibaanaynu nahay dad ummadii soo dooratay oo shaqadan u dhiibataynu nahay gudoomiye shalay markuu nin waliba fagaaraha taagnaa uu soo baxayay uu codka doonayay miyaanu lahayn kuwii hore waxba may qaban way iska fadhiyeen annagaa wax idin qabanayna maantana way naga fadhi kala gasla dhacnade shaqadii iyo wixii laynaga filayeen ummadda u qabanay inuu soo ballan qaadanay meedo lagu maanta lagu kala dhex jiri lahaa baynu iyagii la kala jiidi lahaa golahani ceeb ma leh waa golo dawladeed mar walba waxa magaca ka xumeeya ama magaca u hagaajiya kolba cidii dadkaasi soo dooratay meesha keento mudana gudoomiye waxaan ku sheegayaa qaladka oo dhan waxa iska le bulshada inaga day ilaahay samada inaga mu doorano kitaab inagu soo deginayno xildhibaana noqono dad baa cadeed inoo taagnaa oo ina soo doortay qaladka dadkan aalo ina soo doortay markaynu soo baxnay aynu halkii la doonayay nimid aynu isku dul qabsanay inay dhadaan shaqadan idin diranay tan ma shaqadan idin diranay hagaagsanay qabta miyaan ahayn iyagii baa kala qaybsan oo xildhibaanka mid waliba xildhibaanka reerka reer hebel iyagii baa qul dadka la dhex socda doonayaan in wax loo qabto mudana gudoomiye waxaynu nahay gisaasad faynuusku bariga hore wuxuu lahaa gisaasad habeen oo dhan markuu ku shidnaado qofka iska leh markii habeen dambe kala gaadho uu iska sifeynay uu iska hagaajinay hadii kala waxba arki maayo sidaas oo kale inuu nahay oo dadkan inuu u shaqeynaa golahani waa muraayad halka gisaasadaas oo kale ku jira walkii wadanka laga dhex arkayay dadku iska dhex arkayeen hadaanay markaynu islayneen isku dul qabsanayna oo dhan iyagoo midaysan war shaqada idin diranay caynkan ma shaqada idin diranay qabta oo ay xildhibaan kala raacan shalay tolaalka markii isku diranay dhowrkii xildhibaan iska fadhiyay ee xishooday markii golaha laga dareeray dadweynuhu falanqaynta ay soo celiyeen waxa xildhibaanada halka fadhiya way baqanayeen oo feedna ma yaqaanaan waxna ma yaqaanaan dadkii ixtiraamka iyo maamuuska sugayay aan golaha ku dhex dagaalamin marka la yiraahdo ma garanayaan kalfadhigi labaad in gudoomiye soo noqonay iyaga ugu horeeyay wixii qaska bilaabo gamba inaga dhigan Allah u baahanay waa mid naf lagama tagin kuwii maanta la kala jiijidi lahaa bayna askartii amniga loo diray ciidankii amniga loo diray maatada iyo inay ilaaliyaan inagii mas'uuliyiinta hay lagu kala dhex jiraan kolba laba dhan u jiiyaan oo dadweynuhu fadeexadeen iyo ceebteena daawado mar la aliya markii halkaas ku duldulana dibadda intaynu baxno sidii ambalaaska wada qaylino halkii ceebteena dhuuman lahayn inagoo arin isku raacayna arkimaysid inagoo ajenda isku raacayna arkimaysid waxa kale isku raacnaa waa hiil iyo nin halka xildhibaan ku dhuftana waan raacay kana ku dhuftay shaqadeena maxay tahay waxa kale oo dhan balka kaalay ee golaha u yaala shaqadeena waa gacanteenu dejino muslimiin ku tahay kirlaan ku dejin kirlaan rag baa ku leeyahay xisbaxnimo kala oo ka baxa afarta garabnimo hadal iyo yahan lagu arag adduunyo mid kale sharci buu leeyahay garoomada kubadda hadaad aragto qofka garoonka qalad ka dhex sameeya ganaax buu leeyahay intaas oo ciyaaradu ka maqnaad buu leeyahay lacag ganaax buu leeyahay halkaas inuu isku wada dilay ka qofkan golahan qaska ka dhex wada ee waxaan bilaabay hebel dilaya ama waxaan sameynaya waxa loo arki laayay ganaax ku dhaca xukun u yimaada waa aqalkii sharci dejinta madaxweyne ma maamulo wasiir ma maamulo cid kalena ma maamusho inuu haday qalkii ugu shaqada badnaa xaalad degdeg haday timaado ama xaalad ba timaado kulan degdeg la isku yeero sidee dagaal baa la isugu yeeraya hani qaladkan oo dhan waxa iskala dadweynaha hadayna oranayaan war shaqada idin dhibanay tan ma hee shaqadayda haagsan idin dhibanay qabtayeen idin ka doonaynay haday iyaga yihiin awr kiraale oo kareysan siyaasi mar walba nin siyaasi kubsanaya oo magac iyo xil doonaya hebel afartan sanadood ilaa 100 sano inuu gaadhay inta shayga qulunkii qabyaalada aan iska dhex saari karlaana mudana gudoomiye wadalka adduunka agtay wanaag yaa aqoonsaday min nabiga ku dhex nool oo dibadda uga yimid soo dad isku tagay oo tashaday oo wixii dantooda ka wada shaqeeyay soo ma wixii kale ka tanaasulay maanta kuwii golihii sharci dejinta fadhina ceebteeni cid walba way gaadhay askana in gooniya wada
mudana gudoomiye waxba qaran maayo inuu ka wahay haddayna lahayn maanta cid inagu dhex jirta cidina kala qabata cidina soo kala gaadha oo dadkii waxay u qabanayeen inaga ma filayaanba waxaad mudayna dagaalkana taawanayeen inay qabaayil kala safanayaan nin walba reerkoodu maalintuu soo baxayay oday iyo caaqil iyo suldaan iyo sheekh umay kala hadhin way soo calaamad saareen halkan ay keeneen waa nin magac huwan cid ka socda mar laaliye markuu wax qaldu golaha qaso cid walba qaso sidii markii hore ugu soo baxeen ee meel walba ula taagnaayeen ee fagaar walba ula taagnaayeen miyay inta imiga soo kacaan oo dhakir laayeen war waxaan ku meeshan ku geysanay waxaan ma magacayga baad sida taay ama meeshan iska eeg ama qaskan jooji mudana gudoomiye xil meesha la joogna mare maanta company ama meel shaqayso magaalada kamid ah haday dadweynaha qiimaan macquul ahayn ama waxaan sidii ahayn si kaga dhigto inaga hayd kuwi laga xisaabtamay wuxuu dajinay iyaga la hadli lahaa dadkii ba markay yaabeen inay isku dul qabsaneen iyagu isku dul dilay ay naftoodii noqotay intay isyar urursadaan inay shirkad min leeyahay xafiis intii hor istaagaan inay raax xafiis fadhiyaan naga daay xaqoodii ka bariya markay isku dul qabsaneen inagu fariis la dhacnay maalin kaliya darbijifta kaga hadlan golaha masaakiinta kaga hadallo danyarta kaga hadallo qalbi ajinteenu gacanta u taagna aynu uba taagnabe ma muslimiin ku fadhi karlaan shaygan ugu qaldan ee dhexdeena ka jiraana mudana gudoomiye wuxuu yahay shayga qabyaalada ah dadkiina soo doortayna aqli male waa urkiraala siyaasi u kireysan oo kolban inuu kubsanayo xataa qaar ku soo laba noqonayaan golahani magac iyo maamuus buu leeyahay sharaf buu leeyahay sanadii shalay toole meel walba kala haynun annaga xildhibaanada kaleedii ka wanaagsanaan annaga wax idin qabani ministagaalna haddana mistilina mudana gudoomiye maanta haddii nin walba reer yahay maalin walba midkeen baa saxaafadda ka hadla xildhibaanada ka mid oo maalinba midda ka hadlo hadalku shalay yidhi uu qalday marka la inta dib u soo fadhiistay raalgelin bixinaya oo dadkii la yidhi wax qabta mas'uuliyiinta ahaa mudana maanta ama nin waliba duuleeyahay reer baana ama cid gaar leedahay reer buu yahay oo dadweynahaas umada wax soo dooratay inuu waliba reerkooda maanta haw tago halkaas kaga tago wuxuu qabanaya haw qabta halkaas markuu yimaado xildhibaan qaran buu yahay umada oo dhan buu wuxuu qabanaya inaynu kala tagno inuu waliba cid leeyahay wuxuu qabanaya haw qabto iyo inaynu xildhibaano qaran noqono inuu dalka horumar gaarsiino umada wax u qabano wixii la inoo doortay aynu qabano oo aynu noqono dad horumaray oo wax qabsaday oo ceebtana dadweynuhu maalin walba daawo